kulanti wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba kuna soo dhawaada kulan dood wadaag ah doodda waxaynu ku falanqayn doonaa sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga iyo wacyigelinta arrimaha bulshada ee haweenka Soomaaliland sidii kor loogu qaadi lahaa sidii cadaalad loo heli lahaa iyo arrimaha muhiimka ah doodda waxaa si toos ah uga daawanaysaan telefishinka madaxa bannaan ee Horyaal 24 TV doodda waxaa igala qayb geli doona Farax Axmed Cilmi oo ka socota Nagaad Network sidoo kale Xamdi Yuusuf Muuse oo ah garyaqaanad ka shaqeysta arrimaha haweenka sidoo kale waxaan ka marnay dhinacii diinta uu nagala jooga Sheekh Yuusuf Cabdi Xoore oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ugu horeyn su'aasheena aan ku furanayno doodda haddii aan siiyo Sheekh Yuusuf waxaad wax nooga sheegtaa diinta islaamka xuquuqaadka shaqo ee haweenka marka laga yimaado arrimaha guriga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا قبل وحويا أنت مسلمة كل إسلامكم شقة وقولي هاي إن الشقيسو شقوين كامر كلاجي معدو شقة قولي كامر كلاجي معدو والشقين كرتا iyada oo shaqadeeda iyo taladeedu runtii ay ku dhisan tahay marka ay guri leedahay ama caruur ay leedahay tala wadaaga muxuu ahaa qoyska oo odageedu muxuu ahaa kala tashato way shaqayn kartaa islaamkuna wuu ogol yahay shaqada nooc ay doonaysa ha noqotee inay qabato waxyaabihii muxuu ahaa islaamku inuu ogol yahay oo dhan inay qabato waa la ogol yahay ama ay ka shaqaysato taa waxa kaaga filan daliilkeeda hadaynu doono Aisha radiyallahu Khadija radiyallahu anha afwan نبي محمد يعني واحد قبض بايع مشترى بيهاد سن وذا أغنى أمهات المؤمنين رحمه الله واحد هاد قبض شقيسو أو نبي محمد وشقينا يسوق أو رلين يرى أو إن يرى دبنا يدو إن أنتي مركي أركتين نبي محمد شقديس يا أميناديس قيمها وكفر ديويل كرلين يرى ذا أو يدو مركه هو الرسول اعتقاسرين إن الأذاب بدنه بايع مشترى كي يقانو شقوين كوفي عنه يعني أي أدرت الشقة دبنا ولا شقيي markii dambana rasuulku kaleey salaatu wasalaam waxaanu garananaa in xataa dhaqaalihiisa koobada dacwada uu ku filnayay inay Khadiija ka imanaysa iyadoo baa mushtarak oo shaqaysa nabigana kaleey salaatu wasalaam aad ku aan qabatay intaas kaaga filan ba in dumarku ay shaqaystaan banaanta sharciga uu ogol yahay marka laga reebo mihnatul bayt shaqada guriga laakiin ay ku dhisan tahay muxuu ahaa wada tashiga guriga iyo labada qof ee mas'uulka ah odayga iyo haddii inta guri leedahay way danada guri lahayna waa iska madax banaanta waa shaqaysan kartaa السلام عليكم ورحمة الله. واتهاي هدي عن ميكروفون كان سيو فرح أحمد محي هيدي سدو شيخ وشاقي إن محي هيدي هدي قبردو أي نقول لهاي إنه قبرتها هاي إن أي هولها كلا يقبسن كرتو محي هيدي أذكر بمحل قبرتها. بسم الله الرحمن الرحيم وحويان قبرد مسلمة دعاء sidaa uu noo sheegay sheekhu de wax laga manciyay oo diintu u diiday ma jiro way shaqaysan kartaa shaqo wal oo kasta oo ay xaq u leedahayna way qabsan kartaa ta gurigu waa wax iyada u gaara oo leedahay laakiin imika matalan ba wacyiga siyaasadda markaynu eegno iyo waqtiga aynu ku jiro de inta meeloodba way ka qayb geli kartaa ama haday tahay wasiiradii iyo dawladii haday tahay xisbiyadii intaba way ku jiraan oo way ka qayb galaan laakiin cadkii ay lahaayeen kama helaan meelaba kama helaan marka waxa wacan inay kol hadii ay yihiin xoogii iyo awoodii iyo quwadii xisbiyadu ku soo baxayay madaxweynuhu ku soo baxayay xildhibaanku ku soo baxayay inay helaan roolkii ay ku lahaayeen bulshadana inay ka helaan positionskii ay lahaayeen oo lagu xisaabtamo ay xisbiyadu ku xisaabtamaan maaha inay awrkoodu markaa ku kacsadaan laakiin waa inay ku xisaabtamaan waxa weeyaan inay reeruhu qabiilooyinku inay ku xisaabtamaan haweenkii ay kuma xisaabtamaan inankaas ma lagu xisaabtamaya inankii inantii walaalaha ahaa inanka lagu xisaabtamaya inanta in laftirkeeda lagu xisaabtamo in ay xaq inanku leeyahay kiisii oo kale ay leedahay markaas la gaari karaa ay bulshadu de noqoto in la siman yahay xaqii loo siman yahay laakiin imika daweyn ognahay xooba kuma hayno wasiir ma hayno agaasimayaal ma hayno xisbiyadiina lagu ma hayo dawladda laftarkeedana lagu ma hayo maalin walba madaxweynuhu wuxuu magacaabaa intaasoo agaasime intaasoo
agaasimo waaxid baa la magacaabaa midnaba wax inani kuma jirto xeer in maxkamadaha xeer ilaalinta table ma joogaan gabadhu markay dhibana tahay ay dhibi ku dhacdo waxay tagaysaa maxkamadii waxa fadhiya rag kii dhibaateeyana waa nin marka waxa weeyaan roolka bulshadeena maanta wacyiga aynu joogno wuu ka maqan yahay roolkii haweenku wax ka qaban kari lahaayeen waa tahay farxi haddii aan su-aal kala weydiiyo intaan mikrofoonka dhigin ma socon kartaa haweenku iyaga isla daadego oo isku ogolaan inay siyaasadii ay soo galaan oo iyaga maaragtay lid isku ah dumarku ma odhan kartaa maya ma odhan karo waxa weeyaan horta rag iyo dumarba lid waa la isku yahay ragguba lid buu isku yahay dhowr sababood oo maya horta ragguba lid buu isku yahay oo waxba isuma ogola laakiin way kala ritaan waxaana kala reeba had iyo jeer beelaha shan inan baa isa soo sharaxay golihii deegaanka ka soo qaad reer ah odayaal iyo cuqaal baa u fadhiisto oo yidhahda war hebel baa sanadkan intiinan ay hadha iyagaa kala reeba soo maaha waxbayaan markaa iyagu dee meel bay leeyihin loogu garnaqo dumarkii meel loogu garnaqa ma laha oo meelay marjacay ku noqdaan ma laha waxa weeyaan marjacaa ragga u garnaqaya haweenkana inuu garnaqo waayo waa ka mid bulshadii qabiilka ahay wada qabiil baa wax lagu qaybsadaa laguma qaybsado wax kale waa qabiilooyin baa lagu qaybsadaa xildhibaanada dee qabiil waliba waxba ku tirsadaa waxayaan markaa halkaa odayaashu ugu garnaqayaan ragga ay ku kala reebayaan afarta haween ama saddexda haween isku meela in loogu garnaqo ta labaad inaan inantii lagu gabadhii guriga lahayd ama inantiiba la odhan reer hadhow way guursanaysaa reer kale ula tegaysaa ama gabadhan waa la qabaayo reer kale kursigii ula tegaysaa bulshadii bay wax ugu qabanaysaa kay u dhaxday iyo kay ka dhalatayba waxbay gabadha u qabanaysaa guriga waxaa laga yaabaa 10 qof inay ku nool yihiin 5 ay reerka u dhaxday iyo 5 reer ka dhalatay intiiba way kaafiye karaysaa waxbay u qaban karaysaa waxa weeyaan halka mushkiladda ugu weyn taala waxa weeye waa xisbiyada iyo beelaha oo aan siinahayn inanta roolkii ay lahayd ay ku lahayd bulshada ku lahayd iyo kulba madaxweynaha soo baxa awgiisu ku kacsada uu ku soo baxa madaxweynuhu wuxuu ku soo baxa codka dumarka iyo dhalinyarada wuxuu lagu soo baxa codka dhalinyarada iyo dumarka lagu soo baxa maalinta uu kursiga tago ballanqaad uu sameeyaa boqolkiiba 30 boqolkiiba 60 bay dumarka yihiin loo odhanayaaba taasaa marka hore qalad ahay boqolkiiba 30 la qaaday deema 10% 12% ay noqdaan soo ma baxaanba marka waxa weeyaan maanta dumarku carqaladda iyo dhibaatada haysataa waxay ka haysataa xaggii dhaqanka xaggii qabiilooyinka iyo xaggii xisbiyada iyo xaggii dawladda intaaba way ka haysataa waa tahay waan ku soo noqonayaa farax haddii aan mikrofoonka u dhiibo xamdo yuusuf dhibaatooyin badan ayaa dumarka ay la kulmaan sida warbixin ay dhawaan ciidamada boolisku ay soo saareen ay ku sheegeen in 530 kufsi ay dhaceen sidoo kale kufsigaas waxaa qayb ka ahaa 616 eedeysane sidoo kale haweenku waxa ay la kulmaan dilal fara badan sideeba ay dumarku uga bixi karaan dhibaatooyinkaas bismillaah horta dumarku si maxay haday qof kasta oo bini'aadamnimo cadaalad ugu baahan yahay ay dumarkuna ugu baahan yihiin dhibaatooyinka dumarka haystaan aan waxaan oran karaaba xuquuqda ay lahaayeen horta ma fahansanaba maanta xaq kamid ah xuquuqdeedii hadii la duudsiyo amba ay weydo habkii ay raaci lahayd amba qodobadii sharci ay isticmaali lahayd ma fahansanaba ma garan karayaan ba wacyi gelin ku filan ma helaanba maanta gabadha kufsi amba dil loo geystay garanaysaa wixii ay xaq u lahayd iyo habkay u dacweyn lahayd way u fududahay inay maxay haday dacweyso dumarkii ma fahansana xuquuqdoodii xagaad u dacweynaysaa ma fahansana ayagu ka qayb qaadashadii maxkamadda kama muuqdaan dumarkii oo rag bay u badan yihiin marka caqabad badan ayaa dumarkii ka haysta xaggii cadaaladda ayagu yoon laftarkoodii fahansanayn iyo waqti ay ku qaadato si cadaalad loo gaaro intaba waatahay xamda yuusuf maadaama ood ka mid tahay maadaama ood ka shaqaysid maarta arrimaha haweenka maxaad ku cadeyn kartaa in haweenku ay leeyihiin cadaaladooda imaka dastuurkeenu haweenkana wuxuu siiyey xuquuq dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland xuquuq isku mid ah buu siiyey haddii aan soo qaadano qodobka 8aad
dastuurka jamhuuriyadda somalilan wuxuu inoo sheegayaa farqadiisa koowaad dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan inay leeyihiin xuquuq iyo waajibaad isku mid ah sida ay iminka farax ka dhawaajisay dowladeenu waxay u qaybsan tahay 3 qaybood qayb maxay ahaydee qayb waa sharci dejintii iyo fulintii iyo garsoorkii sharci dejintii markaynu halkaa iska dhigno si madax bannaan baaba iyagu bulshada dhexdooda way soo doorataa oo caqabad kasta kaga yimaadaan doorashadeeda laakiin si madax bannaan baa iyada loo soo doortaa fulintii qaybta fulinta haddaynu u nimaadno waxa dhacdaa madaxweynaha ayaa wasiirada iyo agaasimayaasha soo magacaaba intaa uu soo magacaabay unbaa shaqadii kalena fulisaa ma arkaysid amba way ku yaryihiinba wasiirada iyo agaasimayaasha lasoo magacaabayo adu qaybtii fulinta doorkoodii dumarku kama qaataan xagii garsoorkana ayagana kama qaataan ma arkaysid weli gabadh loo magacaabay gudoomiye inay ka noqoto maxkamad amba xeer ilaaliyo gobol inay noqoto inta midnaba ma arkaysid marka baahiyaad badan baa ka jira sidii ay dumarku cadaaladooda u heli lahaayeen hadday fulintii noqoto hadday sharci dejintii noqoto iyo hadday garsoorkii noqotoba sidoo kale xisbiyada xaggooda xisbiyada loomloomiya inta ugu badan dumarka bihaanta siinun bay dhigtaa xagga dambuun bay dhigaa olole iyo inay danahooga ku gaadhaan meelaha muhiimka ah dumarka umaga magacaabaan marka caqabadahaas oo dhan baa dumarka haysta inaanay cadaalad helin waa tahay xamday ma jiraan kiisas cadaalad darro oo dumar ku saabsan oo adigu la kulantay anigu horta bulshadun baan ku dhex jiraa inta ugu badan waxaad arkaysaa ilaahay dumarkii mas'uuliyadoodii buu saaray waxaad arkaysaa gabadh hooyo ah oo 5 korinaysa oo wax laga yaabo 4 subaxnimo say u baxdo hadday doonto 7 amba 8 habeenimo imanaysa ninkii markuu doono wuu dilayaa maxkamadii bay imanaysaa ilmihii ayadaa biilinaysa isagii laftarkiisii bay biilinaysaa xuquuqdii ilaahay saaray ee rijaalul qawaamuuna cala nisaa wuu lumiyey ayadaa wax walba qabanaysa dee maxkamadihii marka ay timaadana waxa laga yaabaa inay waqti ku qaadato oo ilaa raxfaan maxkamad sare ay ku gaadho gabadhaasi xuquuqdeedii u heli lahayd laakiin iminka inta badan xeerarkii xuquuqda dumarka lagu sugi lahaana waa kuwan Biden-ka ee weli ku jira baarlamaanka xeerkii kufsiga weli lama ansixin oo waaba la isku haystaa isagaba xeerarkii dumarka lagu dhowri lahaado weli way taagan yihiin waa tahay haddii aan mikrofoonka siiyo Sheekh Yuusuf sheekh bal waxaad nooga warbixisaa haddii ay jiraan cadaalad darro dumarka lagu hayo bal waxay diintu ka qabto بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين إنك حمدية فرح دي أرمى فرح بدن بيك هذلين أرمى فرح بدن وحكم ده هون ضمركو إن كعبنا يان أرمها سياسة أنت فرح بدن إن كعبنا يان حقوق إليهن مكانتها هاي إن هذه سياسة هاي وحيابها لقاها ضياء أما قلياش إيو حسبية إيو شقتك إيو وحيابها ني dadku bariga hore waxa laga yaabaa inaan aqoon badan lahayn waxa laga yaabaa inaanay de qofka dumarkii stage-keeda ama garaadkeedu inuu ku xadidnaa un meel gaara imakana markii dadku ay wax barteen ee aqoontii la yeeshay haddana kolley ina meel ku xadidnaataa waa laga maarmaan marka kolley tacaddi dumarka ku imanaya waa fara badan yihiin oo way iska jiraan bulshada dhexdeeda markaad eegto liannahu waa dadka u nugul tacaddiga iyo dhibaatooyinka rag waa qafqaflayaal oo waa loogu talagalay dhibaatooyin iyo dagaal iyo rafaad iyo dhac iyo dil iyo wax badan oo adag laakiin dumarku inta faraha badan awoodaha noocaasa inay wax dhacaan iyo inay wax dilaan iyo inay wax qaadaan midna dadaalkoodana kuma jirto fikirkoodana maaha laakiin rag waxay ku fikiraan waa kamid waxaan odhan lahaa dee dumarka islaamku kolley dumarka islaamka aad buu qiimeeyey waxa uu ka soo qaaday darajo aad u hooseysa dadkan iminka xuquuqdooda iyo xuquuq baa ka maqan dumarku waa caynkan waxaan la sheegayo islaamku waxa weeyaan wuxuu ka soo qaaday gaalada iyaga oo yacni taxta sifraba ilaahay subxaanahu watacaala uu nabigeena soo saaray wuxuu soo saaray dabeedna wuxuu gaarsiiyey darajo caaliya ah waxa uu tilmaamay hablo dumarku dee in ay yihiin matalan waxa weeyaan saa ay sheegtay farax waxa weeyaan waa muddo laba afloo xaggan iyo xagganba iyadu way u ridaysaa xaggii reerkii way ka socotaa xaggii muxuu ahaa dee dhalashadiina way ka socotaa dadkuna waxa weeyaan waa qayim dumarku oo waxa weeyaan waxay isku xidhaan dee laba beelood ama laba laamood oo waaweyn labadaa laamood iyadaa isku xidhan laakiin dee ninku maaha
isaga laftiisu wuu isku xidhaya laakiin ninka waxaad moodaa in haddii doorasho iyo arrin ay yimaadaan labadii dhinacba ay dooran karaan isaga laakiin inanta dee ama reer ha lahaata ma yar haalina hadday tirahdaa waxbaan doonaya yaa dooranaya ma reerka u dhexday baa dooranaya mise reerkii ka labadaba way ku xisaabtamayna waa ina hebel halkana waxa weeyaan carruurteedii iyadiiba xagga kale jirta yaa idin dooranaya billah calaykum ma reerkii kale aanu idiin dirnaa mise kii kale mise labadan waan isugu kiin darnaa waxa weeyaan inay labaduba idin doortaan xaq baa u leedihin leanno kana waa joogtaan kana waa joogtaan labadiiba idinkaas ku xidhaya xuquuqna waa leedihin halkan la idiin dooranayo ee aad tegaysaan ama loo yaacayo waa problem aad u fara badan ragga laftiisa baa qaban kari la oo hayn kari la oon xilkaa gudan kari la idinkaaba sheegaya inay gudan kari lahayn xuquuqdii inay gudan kari lahayn cadaaladii in ay baydhbaydh maxaad u malaynaysaa dumarka haddii yimaadaan in lama idinku dee kulle waxaad aaminsan in la sugi lahaydeen ragguba wuxuu aaminsan inuu sugaya laakiin anigu waxaan odhan lahaa xuquuqda hablaha iyo dumarku waa mid ilaahay subxaanahu watacaala raggana uu ku waajibiyey inay ilaaliyaan oo ay daryeelaan nimanka waxaad sheegtay 500 iyo siyaado qof oo sanad gudihiiba 4 sano gudahood intaasoo tacadi oo dhacay hablihii ku dhacay ciddii samaysay in lagu eedeynayna kolley waaba naadirba ama qof waxa loo hayaa tacadigaasi waxaa keenaya waxaan qabaa inay dumarku qayb ka leeyihiin inay qayb ku leeyihiin raggu ha ahaada daalin xunoo dee isagoo saqajaannimada iyo xumaha samaynaya ama ku fooganba oo diyaarba waa inuu xumo sameeyo laakiin habluhu iyagu inay marka horeba dareemaan in dadka tacadiga lagu samayn kara ay yihiin oo ay ka didibsadaan waxyaabo fara badan oo ay halkay ku nabadgelayaan iyo muxuuha islaamku meelaha uu qayday inay ku noolaadaan inay la loolamaan ragga oo meel walba istaagaan oo iyagu ay tagaan oo socdaan xilliyada loogu talagalay habluhu inay matalan waxa habeenkii oo kale dumarku waxaan arkay hablo 9 habeenimo ama 10 ka soo baxaya waxbarasho xaq bay u leeyihiin ka soo baxaan nabadgelyadu inay sugnaataa waa laga maarmaan dadkii loogu talagalay inay sugaan waa laga maarmaan laakiin ala sabiili duruuf markaynu eegno inay iyagu islaaliyaan waxay kaga habboon yihiin dadka loogu talagalay inay cadaaladda sugaan inay iyagu naftooda ilaaliyaan marka waxaan odhan lahaa dumarkuna inaanay ka qayb qaadan laakiin dee intaas in leeg marka nabadgel intaas in leeg oo ku dhacday muxuu ahaa ee tacaddi ku dhacay ama dhibaata ku dhacday waynu iska garanaa waa bulsho markay badan tahay wax badan baa iska yimaada ummadaha kale waxa weeyaan tacadigooda iyo xumahooda iyo qashinkooda uu qarsoon yahay laakiin dadka islaamka markaaba uu soo baxa sababtu waxa weeyaan waxaynu leenahay dad saliim ah oo qalbigooda iyo dhaqankooduba u saxiya waxa yaree meel ku dhaca ama dhibaato yar dhacda waa la ogaanaya markaaba laakiin kuwa kale lama ogaado ama waa naadir haddii la ogaado inagu saasaynu markaaba u ogaanaynaa in tacaddi u dhaco waxaa kaloo kelmad ka odhanayaa matalan rag tacadiga ragga samaynaya kuwa samaynaya waa rag kuwa garsoorka ka hina waa rag dumarka maxaa garsoor noqon waaya farxin waxaad jeclaan inay garsoor noqotaan soo fadhiistaan xafiis garsoor oo idinku qaataan muxuu ahaa bahashii la odhan jiray muxuu ahaa waxay idinku aad jaj ka noqotaan matalan maxkamadda degmada oo kale ama ta gobolka oo kale inay garsooro ka noqotaan anigu waxaan arkaa waa shaqo culus idinka oo ka cabanaya tacaddi waxaa laga yaabaa in tacaddi ka badan way idinku yimaado idinka haddii aad tiraahdo halkaa fadhiista marka inaga oo ilaalinayna muxuu ahaa siyaanata hadaa xuquuqda guud in la ilaaliyo waa laga maarmaan laakiin idinkaabay dhib idinku tahay oo idinku culus tahay in aad qaadaan arrinta noocaas oo kale iyo tacadigeeda lianna raggu wax badan oo ay qaadi karayaan aydan xamili karaynin marka waxaan odhan lahaa dee ragga laftoodu inay xaquuqdiina ay sugaan ilaaliyaan markuu garsoor yahay iyo markuu wasiir yahay iyo markuu madaxweyne yahay iyo markuu meel kale joogaba iyo marka guriga dee joogtaanba inaanu ilaalinaa waa nagu waajib taa ha ka boodin inay waajib nagu tahay annaga laakiin waxaad isku daydaan inaan nagu ilaalisaan waajibka nagu leedihiin inaanu fulino waatay sheekh haweenku iyagaaba dhib qaba oo kubsi loo geystaa la dilaa iyagu sidee qayb uga yihiin in iyagu dhibkiis ku geystaan absolutely waxay qayb uga yihiin horta dumarku way soo baxeen iyagoo duruufo in fara badan ay soo saareen oo ay dibadda u soo baxdaan duruufta ay keenayso tacliinta ay keenayso waxyaabo fara badan baa inagu xeeran waxa inagu xirani waxa weeyaan waliba dunida waxa inoogu fiican dadka ugu fiican baynu nahay xagga tacadiga waxay uga qayb yihiin iyaga way soconayaan halkii laga helayay iyo banaankii iyo meeshii dadka ay muxuu ahaa dadka xuma ay ka helayeen bay damarayaan oo ay tegayaan inay ogaadaan xilliga ilaa ay suganto xuquuqdooda iyada oo hadday bannaan seexato inaan la taaban karin ay ogaato waxa weeyaan adeer in ay iyadu horta nafteeda badbaadiso oo xilli hore inay ka hoyato oo ay meel nabadgelya taalla ay tagto maaha iyada suuqa maraya in la kubsado
maaha in been loo sheego la kaxeeyo in bahlahan inta faraha badan dhalinyarada waxaa lagu khaldaa ama dee dadkan aad arkaysa dhalinyarada inta faraha badan way qaldaan hablaha siyaabaha lagu kubsanaya way farabadinaadeen waa influencer baa lagu samaynayaa hadalkoodii iyo maskaxdoodii iyo waxoodii waxa laga yaabaa in ka yar nin uu qof fiican influence gareeya uu yimaado oo ay si yaroo fudud u aaminto dibadna uu dhibaatooyin fara badan ku sameeyo kaasoo kale arrimihii oskarinaya inay taxadirkeeda lahaato waa laga maarmaan inaanay cid walba u sheekin ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ka hadlaya habluhu markay suuqa marayaan inay ragga alla kaftamaan ama ay u sheekeeyaan maaha inay kaftankooda ogolaadaanna maaha eeg maxaa la diidaya waliyadribna muxuuha aayadda qur-aanka ahayd falaa yakhdacna bilqowli fayadmaca alladii fii qalbihi maradun ka doqonka hee caqligiisa ama qalbigiisa waa ruux dumar ahun uu garanaya laakiin aan garanayn xuquuqda iyo badbaadada iyo amniga iyo nidaamku waxa uu yahay waxa weeyaan dee qalbi jilicsan ama hadal dabeecsanood kula hadasho ninka xumi waxa weeyaan wuxuu ka dhigaynaa waddo uu kuu soo raaco ama xoog ha kugu maamulo ama dee ogolaansho ha kugu maamulo ha kaa hadal ha kugu kharijiyo marka waxa weeyaan in idinku iska ilaalisaan adeer ninka cadowga idin ah ee aanad garanaynin ee idinku soo baxa ee ama laami kugu soo mara ama waxaan arkayaa habeenada kamida waxay la kulantay inan baan anigoo socdaan taxi baan la kulmay inan baa ku dhex jida nin bay haystaan ma rumayaan waan ku qaaday waxay igu tiri wuxuu igu yidhi waan ku qaadayaa aan ku sii gaarsiiyo haddaad halkaa usii socoto dara lumbaan u saaray dee qofka haddaad muslim un moodo oo iska soo raacda ka warran waa dhibaato dumarku inay aanay noqonin dad muxuu ahaa meel gaaban wax ka arkay meel feegina wax ka eegtaan ina qofka aad la arkay haddaad garanayso in adeerkaaba haado waa inaanad iska ilaalisaa inuu qofkani cadow ku yahay oo adigu aad tahay qof u nugul dhibaatooyin lagu sameeyo xilligeedana aad ka badbaado meel nabadi joogtana aad tagto inta aanay dee muxuu dhibaatada xilliga la samayn karayo ama dhibaatooyinka sameeyaan aydaan inta faraha badan dad u nugul oo hadalka ragga dee u nuglaada aydaan noqonine dad iska ilaaliya oon hadal badaniba idin dhex marinba inta badan markaasaan u leeyahay waxaad ka qayb qaadataan idinka laftiina laga yaabaa ka qayb qaadataan dhibaatooyinka laydiin geysanayo waa saas weeyaan waa tahay sheekh waan kugu soo noqon doonaa haddii aan mikrofoonka siiyo farax axmed waxaad wax nooga sheegtaa ka qaybgalka haweenka ee talada dalka bal waxaa nooga sheeg بسم الله الرحمن الرحيم horta markaan point yar ku noqdo oo sheekha hadaladiisa ka mid ahaa sheekh horta dhibta markay dhibi dhacdo cidda dheef ka hesha ama ay dan u tahay waxa weeyaan waa ragga laakiin annagu dumarku hadduu yahay dumar waa beel nabadeed had iyo jeer dumarku nabadda ayay ka shaqeeyaan guriga odaygu kii xayraansan buu soo galayaa shaqo ka yimid iyadaa dejinaysa wuxuu caruurta aabba wakan uu soo galay hooyo aamus oo wakaas iyada kala habeynaysa nabadda ayay dumarku kow ka yihiin golayaasha dalka haddii ay ka qayb galaan oo xeer dejinta oo kale ay ka qayb galaan baarlamaanka iyo guurtida laftarkeeda waxaa laga yaabaa raggu halkuu hawshaa hor timaada benefit ka eegayo iyadu inay nabadgelyo ka eegto oo ay intaasoo ninaba iyadoo baar baa ku jirtay wax badan bay baar dejinayso oo ka qayb qaadanaysa marka horta haddii ay golayaasha ka qayb galaan dumarku sidoo maanta tahay wax badan baa ka iska bedelmi lahaa ta labaad dhibaatada dumarka ku dhacaysa koo ragga mas'uulka ah kuma dhacdo inaan wax baratay oo jaamacad ka imanaysa halkan waxay ka dhacdaa guryaha dhexdooda iyo imika inaan bardowta lagu dilay bas ay soo raacday the public baskii dawladdu ay shicibku lahaayeen ummadda qaadaya shaqaynayay bay raacday way kufsadeen waanay dileen inantaasu dee danteedii bay u socotay 8 ama 9 habeenimaba way ahayd intana ka soo qaad meel bay muraad u tagtay way ka timid dee baskii ay ammaanka u arkaysa baa lagu kufsadoo lagu dilay iyada isdayacday ma qabo isbay dayaceen raggii baa haweenkii dayacay 11 ama 12 iyadoo meel ku shaah ku kariso oo lagu qayirayo intaaba rag fadhiyaan bay ku karinaysaa oo reer iyo caruur bay ku korinaysaa meekii caruurta ka dhalaayay horta dayacaada maanta dalka haysata ragga ka mas'uula haweenku kama mas'uula haweenku way jecel yihiin inay iyadu awlaadii koriso oo hayso oo hagaajiso oo odayga beelkii keeno oo mas'uuliyadii guriga buuxiso
wixii kale ee bulshadeeda ay u qaban karaysana ay u qabato dumarku diyaar bay u yihiin laakiin roolkii raggu horta meeshii uu ka baxay culimadu waxay ka wacdiyaan dumarka u fadhiista laakiin waa raggan dumarkii dayacay ee ay dumarkii salaada 6da subaxnimo kacayso 5tana soo hoyanayso warma kii ka dhalaya qabay roolkaana waan u baahanay culimo ahaan ina hawshaana ka hawlgashaan taa markaan ka tago su'aashaad soo weydiisay markaan u soo noqdo maamo waxa weeyaan intaanay u gelinayna farxintaanay u gelin su'aasha aan laba kelmadaha ku noqdo farxay waxa tiri muxuu ahaa horta arrimaha waxna waa reer oo wax marmar dhaca waxna waa wax soo noqnoqdo mar walba jooga arrimaha reerka inta faraha badan dumarku waxay daliishadaan bay u badan tahay case mar dhacay ama laba dhacay ama saddex dhacay ilaan bulshadeenno bini aadan baynu nahay oo ciidan wax leeg baynu nahay oo waxa weeyaan waa nation ballaaran bini aadan ku shaqo wada noolyahay waxa way dhacdaa in dee ruux dumar la dilo ama nin la dilo ama inan la dilo waa wax waliba soo noqnoqdo inta faraha badan ragga wax ku dhaco iyagu dilkaas ku yimaado laana goob xumay joogaan dumarka laba kiis saddex kiis baan dareemaa oo midna burca ka dhacay midna halkan ka dhacay bari dhaweyd kiiskan lagu jiraa waan filaya oo dee dilkaasi afoosha xun ah dumarku markay dhib ku dhacdo ama dilma ku dhacdo way ka yar dhiif kulul yihiin ragga laana anaga waa noo caadi dhimashadu laakiin dumarka caadi ma aha in inan la dilo ama meel lagu sameeyo wax ama inantaas haday dhax ku dhacana dhimato dad dalka oo dhan ba galgisho oo dareema dhibaatada ilmahaas qofkaasi gaadha arrintan waxaan jecelahay مثلا كفسيغا kala kamida kufsiga de hablaha waa dhici karta kiis fara badan oo reeraho marmar dhaca ayaa la sheegaa in kasta oo de arrimaha kiisaska nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu ka warramay wuxuu war kiisasku markay dhacaan aniga hay keenin nabiga kaleey salaatu wasalaam soo xaliya kiisas badan baa u baahan in la ilaaliyo oo la asturo oo nidaamyo fara badan oo laga dhigin exaggeration inta lagu sameeyo aan had iyo jeer laga doodin meel badan arrimahaasi waxaan leeyahay مثلا runtaa weeyaan inantaasi dadku meel la mid ahayd laakiin dad xun baa helay runtii waxa la sheegay baska inantu raacday labadii inanay midna kii bahalkii ka shaqeynay midna kii bahaleynay san la sheegayo in ay inantaasi dhibaateeyeen markii malaay ka soo noqdeen haddana ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhiigooda ma qariye markaaba haddana ilaahay wuu tusaa dadka waa la helaa arrimahaas oo kale farxay waxa weeyaan waxna waa reer waxna waa wax soo noqnoqdo inta badan oo dumarka ku dhaca waxaan jecelahay arrimaha anagu waan idin kala mid ka nahay aanu ka xunahay waatahay sheekh waanu ku soo noqon doonaa alxamda inay nagu eedeeyaan adeer raaliga raw way yeedhaan in badan hadlaan jeclay soo ma agase waa ku soo noqon ay yar gaaga waay soo noqonaa haddii aan mikrofoonka aan waa ku soo noqonayaa xamdaan mikrofoonka imika siinaya xamda maadaama uu tahay garyaqaanad ka shaqeysa arrimaha haweenka ee Soomaaliland 4 sano gudahooda waxa ku dhacay 538 kiis oo kufsi ah maxay dawladda iyo hay'adaha cadaaladdu ay ka qabatay bismillaah horta dawladda inta karaankeeda ah kiisaska waxa isku daydaa markay kufsiga ay dhacaan ee maxkamadda soo galaan inay waajibkeeda ka marto oo ay xaliso laakiin inta ugu badan waxa dhaca kiiskii kufsiga ahaa markuu hadduu maxkamadda soo gaadho inay odayaashii ka heshiiyaan oo kiiskii maxay ahayd dibadda loola baxo dibadda lagu xaliyo inantu halkaa waxay ku weydaa xuquuqdeedii tii dastuurna way ku weydaa sharafteedii bay ku weydaa ardigeedii bay ku weydaa iyada heshiiskan la gaaray wax faa'iido ugu jirta ma jirto in haddii la dilo diyo laga qaatana wax faa'iido ugu jirta ma jirto imika kiiskan ay farax soo maxay keentay meesha inantan la dilay baska saarneed ee la kufsaday kufsiga iyo dilka la isku raaciyay kiiskeedii waa laga heshiiyey ciqaabta ay lahaayeenna dambiilayaashaasi may mudanin oo dabada lagu dhameeyay magtuun baa la kala qaatay marka inta ugu badan caqabadaha ka haysta dumarka inaanay cadaalad helin waxa ka kow ah in kiisaskii aan boroskii maxkamadeedba aan la marininba ay dabada kiiska ula baxaan iyagu iskood ku dhamaystaan taana waxa uu sabab u baan anigu oran karayaan waa odayaasha uqaasha ayaga dabada uga saaraya laakiin kiisku hadduu maxkamad soo gaaro waajibkooda waa la mariyaa intii karaankooda
waa tahay mikrofoonka waxaa siinayaa sheekha si uu kelmaddaasi uga jawaabo kadib waxaan kusoo noqon doonaa Farax Axmed ma jecli inaan idinku soo celiyo inaan hadalkayda ka boobo maaha in idinku marka dhammaysaan runtii waxay ahayd inaan hadlo arrintaas kiiska inanta marka loo kufsado ama la dilay waxa weeyaan dee sharcigeenu adeer leenahay diinteennu waxba inoo dhigaysa inantu waxay ka dhalatay cid bay ka dhalatay oo waliyu dam baa jira waliyu damku waxa weeyaan waa qofkan dhiiggeeda leh matalan aabaheed baa leh waxa la hooyadeed baa leh waxa la walaalaheed baa leh xawaashi baa la yidhaahdaa inanta tacadiga lagu sameeyo haddii dil iyo waxaasi markaa laysu raaciyo haddii inanta la kubsado oo aan wax kale ku dhicin ama tacadi lagu sameeyo dee sharcigeenu iyadana diimaynu ka leenahay xeer uma nolol horsiyaacdaan kolka meelahan aan isugu nimaadno xeerkan ba horta diinteennu maxay ka qabtaa odayaashan iyo dadkan muxuu ahaa ka heshiiya heshiisku beriga hor ahaa inantuna aanay dadkuna aanu deesan u ballaarnayn ayaa wax laga hadli jiray oo dadku waa lagu kala nabadgeli jiray amniga lianna waa ruuxa dumarka in la isku dilaa meesha suuragal dabadna xal baa la sameyn jiray aan la isugu dilin inankaasina wuxuu ahaa inan ka takooran ummadda inanta dhibaatada u geystay meesha uu joogo waxa laga yaabaa xataa inanna inaanu guursan karinba muddo dheer ilaa meel kale uu tago inantaasi dhibaatada u geystay ana waxa weeyaan waa nacaybka ay bulshadu necab tahay inanta in la dhibaateeyo intii ka dambaysayna waxa weeyaan ee magaalo la soo galay dadku ay ku dhasheen tacadiga lagu sameeyo inanta qof walba uu necab yahay sharcigeenu muxuu ka qabaa arrimaha u baahan in dee solutionka loo sameeyo oo kale waxa weeyaan qofkan sameeyey waa dembiile dembigiisa in la qariyo maaha sharcigu muxuu ka qabaa diinteennu maxay ka qabtaa waa lagu xalliyaa dhaqanku muxuu yaqaanaa waa lagu xalliyaa cid ay dheefi ugu jirto oo aan ruuxa dumarka aad jirkeeda yani waxa weeyaan in la xagto hadday noqoto xagasho sharcigu u soo qaadaya xuquuq buu soo qaadaya laana xuquuqdeeda baa lagu tacadiyay jirkeeda marka si kale loo taabtay loo dhibaateeyana sharcigeena waxbuu ka qabaa uu dhigaya marka taa shuruucdeennana waa la raacaa tan kale dhaqanka alladin muxuu ahaa ragguun baa sida Farax ay sheegtay raggay dheef ugu jirtaa bay tiri anu ma qabo dee qofka inantiisa lagu tacadiya inay isaga dheef ugu jirto ama odayaal ugu jirta dheef ama aan iibsada dhiiggeeda ma qabo idinkaa qaba laakiin wax jira maaha ragguna ma qabo san anugu qabo laakiin marka la rabo in xal adeer la sameeyo magacaa kuma aha ya waata sheekh haddii aan kaa soo dhex galo adigoo soo koobaya aan su'aal kalena aan kugu daro adiga haddii aan kaa bilaabo sidee xal looga gaari karaa si uu yaraado kufsiga adigoo soo koobaya aad baad u mahadsantahay adeer waxa weeye dee waxaynu nahay bulshada kuna darsan sheekh hal minute baad haysataa hal minute qolan haystaa waxa xal looga gaari karaa dee horta in la xakameeyo oo sharci adag loo sameeyo si inantu suuqa hadday marto ay u badbaado oo ay iyadoo xoro u socoto waxa weeyaan sharcigeenu hadday kufsi noqoto oo qofku aanu dil samaynin dee sharci buu dhigayaa waa in la xakameeyaa qofka sharcigana aan la fuliyaayo siduu yahay loo fuliya oo la taabsiiya dadka inantuna waa inay garataa xuquuqda iyadoo ay leedahay ka maqan ee loo geystay waa inay noqotaa hadday iyadu saamaxdo ka war inanta hadday saamaxdo ma rag bay neef ugu jirtaa waa in sharciga la fuliyaa oo qofka dambiilaha la qabta weey anigu waan san qabo waata sheekh wad mahadsan tahay xamdaan mikrofoonka u dhiibayaa in yar aan mid ka yiraahdo inta sheekh weere horta inana iyadu dib iskuma horseedo sababahan xeerka u sameysanaana waa inuu dambi istaago marka maanta qofkii ciqaab ku filan uu mari waayo ee inantii uu dilo uu kufsado beri ka maalin markii la soo daayay laga heshiiyay kiiskii maxkamadda dabadeeda lagu dhameystiro beri ka maalin wax hadeynaya ma jirto wuxuu soranayaa dambigii ku noqo waa laga heshiin adna waa dili waatay xamdee adigoo hal minute haysta oo soo koobay hadalka maxaad xal u aragtaa si loo maxay kufsiga u yaraado waxaan xal u arkaa in horta xeerkii kufsiga la ansixiyo ayadoo ciqaab ku filan loo sameynayo dambiilayaashan dilka iyo kufsiga maxay sameynaya marka ciqaab ku filan la helo qofkii wuxuu ka dawaantoobayaa markuu ciqaabtiisii dhamaysto inuu facilkii dib ugu sameeyo sidoo kale ku kaloo sameyn lahaana isagana waxay u noqonaysaa tusaale oo isna wuxuu oranayaa hebelba waa tii saa loo galay dambigan ha ku dhicin marka xeerkii hal la ansixiyo ciqaab ku filan la noqonayaa farax igu dhiib faraxay sideed u aragtaa in maxay hayday lagaga gudbi karo dhibaatooyinka haweenka haysta bismillaahi raxmaani raxiim
waxa weeyaan dhibaatooyinka haweenka haysta waxyaalaha lagaga gudbi karaa kow waxa weeyaan haweenku horta inay iyagu ka midaysnaadaan in ay leeyihiin ujeedo ay u socdaan oo cad oo ay gacmaha isqabsadaan iyagu haweenka laftarkooda marka horeysa marka labaad waa inay dawladda iyo xisbiyada iyo odayaashuba ku xisaabtamaan haweenku inay bulshada qayb ka mid inay yihiin oo waliba qaybta ugu xooga badan inay haweenku yihiin loogu baahi badan yahay oo marka ay imika matalanba meelaha aad iyo aadka aynu u danaynayno inuu leenahay maxay halkaa uga maqan yihiin waxa weeyaan waa xeerdejinta waxa weeyaan golaha wasiirada yacnihii waa dee inta shaqada ay taho dhan agaasimayaasha guud intaaba waxa ay ka imanaysaa xisbiyadii kabacdina xisbigii markuu xisbiga noqdo dawladdii galo xisaabtankii haweenku awooddii ay ku lahaayeen way wada aragto iyagunbaa ololeeya iyagaa urdo meel walba taagan iyaga yacni ma fadhiistaan haweenku inta badan raggu ma codeeya dhalinyarada iyo dumarkunbaa codeeya marka inay ku xisaabtamaan haweenkii inay yihiin awoodda ugu badan ee bulshada dalka joogta marka inay la gorgortamaan xisbiyada markay gelayaan oo durbaanka undunta noqon oo hablaha siyaasiyiinta ahee doonaya inay positioniskaa sare tagaan inay golaha marka la fadhiyo xisbiyada ay dhacsadaan codkooda oo ay halkaa ka galaan oo noqoninuun dee soo baxa maalinta ay leeyihiin muraad in la yidhaahdo taasaa lagu gaari karaa lagaga gudbi karaa unity haweenkii waa tahay adigoo 1 minute aan ku siinayo faraxay golaha deegaanka iyo golaha wakiilada dumarku midnaba kursi kuma laha bal maxay hidin maxaad oran kartaa waxa weeyaan horta labada goleba haddii ay haweenku ku jiraan sida ay maanta iyadna ahaadeen runtii kow horta golaha deegaanku inkastoo tiim aad u fiican maanta joogo haddana waxa weeyaan golaha deegaanku waa hawsha haweenku iskaba leeyihiin waxa weeyaan barbaarintii caruurta oo iskuuladii hoose waxa weeyaan nadaafadii iyo qurxintii waxa weeyaan yacni deegaanka hagaajintiisii dumarka iskale way guriga imika inaan degan yahay iyo ka inaan degan tahay soo dhalinyaro oo soolanihi isku nooc maaha marka horta golaha deegaanku waxa weeyaan meelaha ugu haboon ee haweenku ay ku soo bixi karaan aan oran lahaa waliba haweenka wax doonaya hankale siyaasadda leh ka bilaaba golaha deegaanka way inantu markay golaha deegaanka ka bilowday wax qabadkeeda la arko toos bay hadhowtana baarlamaanka u tagi karaysaa oo loogu dooranaya marka qofkii halkan lagu arko waa tahay qof kasta oo wax qabtaaba uu deegaanka ka qabta waxa kana tagi kara hadana haweenku waa shaqadii haweenku waa tahay farxay golaha baarlamaanka imika xeerka ay ka dhawaajisay inantu wuu yaalaa hadday haween fadhiyaan way ka lobin garayn lahaayeen dumarku way ka firfircoon yihiin ragga arrimaha qaarkood inay in badan oo ragga kasbadaan markay ka dhaadhiciyaan baa dhici kar lahayd muu yaaleen xeerku wuxuu yaalaa waxa weeyaan imika kufsigii iyo sinadiiba eegada kufsigii diinta islaamka sheegtay xadka ay leedahay laakiin kufsigii may sheegin inaan baa toddoba kufsatay waa tahay farxay waan kugu soo noqonayaa anaka guntiyo gunaanadkii doodeena aan ku guda jirno haddii aan su-aasha ugu dambaysa sheekh ku siiyo xalka guud ee haweenku haysa hadday tahay dhinac siyaasadeed iyo dhinac kufsiba maxay tahay adigoo 1 minute kusoo koobaya gunaanadkii waan dhammaynaynaa insha allah waxaan jeclahay horta inaan kelmad yar ka idhaahdo taas ay sheegayso muxuu ahaa farax horta golayaashan aad ku yarna noqotay waanu idin ogolay labadaba inay gashaan sharci diin diidayaana ma jiro tu islaamiya tu gaaltoona laakiin dee dhaqankii baa idin xadidaya horta bal dhaqanka ka soo adkaado oo dadka wax ka soo dhaadhiciyo oo reerahan kuwa u dhaxdeen iyo kuwa u dhalateenba labadaba wax soo fahansiiya dee markaasay dhaqanka ka soo tallowdaan sharcigana wuu idin ogolaya shaqadii qaban lahaydeen laakiin wuxuu dhaqanku idin diiday annaga nagu eedaynna qodobka kale aad sheegaysa waxa weeyaan halka amiirad baan ku qaadanayaa xalku waxa uu yahay
haddii tahay dhinaca arrimaha siyaasadda iyo kufsigaba labada dhinacba absolutely marka waxa weeyaan xagga sharciga matalan xagga siyaasadda dee waxaan kuu leeyahay nin kasta oo qurux badan iyo mid kasta oo qiimo leh iyo mid kasta oo qaaliya dumar unbay ka yimaadeen oo wax ka dhigay nin kasta oo madaxweyne markuu soo baxo isagoo quran oo taygii xidhan soo baxo xagu ka soo baxaa gabadhuun baa soo koolkoorisoo kaarhkan iyo waxaan u soo xidho soo dirta dabeedna meesha lagu murmayuunbuu yimaadaa isagoo baalgabad inay iyagu yimaadaan oo ay ka hadlaanna xaq bay u leeyihiin maadaama kuwa maay wax ka dhigeen taa idinma diidanino xagga siyaasadda waxa weynaan labadaba gashaan annagaa idin ogol tan kale idiin sheegaysa muxuu ahaa dhinaca kufsiga iyo arrimaha kufsiga iyo wixii aad haweenka talo u haysid arrimaha kufsiga laba qodob u mar odhanaya waxaan leeyahay dadka wixii kufsi adeer maxkamadahan aad sheegaysaan waxba ma qaadaan intaasoo kiis marka arkeen inay waxba qabanba inay habla xaqoodii keenin ee ciddii gashay aanay ku qaadin ma waxbay qabtaan maxkamaduhu waa inay fuliyaan maxkamaduhu qofkay ku qabtaan kufsi sharciga waa inay saaraan laakiin waa inay noqotaa wax dee wixii qofkii la xaq eeg qofkii lagu geystay aba dacwiyayo doodaya shuruuc buu dhigaya horta maxkamadaha waxaan anigu leeyahay in ay fuliyaan cidda kufsi lagu soo eedeeyo waa inaanay waxaan fudaydsan waa inay qaadaan sida ay u tahay damiin iyo iib iyo midna ma leh sidiisaa loogu duubaya qofka markaasaa waxaan istaagayaa ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu sheegay oo uu yidhi war dilka walakum fi lqisaasi xayaatu nolol baa idinku sugan iyo jiritaan qofku nabad uu ku noolaado inantu iyada oo xor ah gurigooda ay tegi karto marka kasoo logaysa baashi marka waxa weeyaan qofka taaban karaa marka lagu qaado kiiska hadduu og yahay in la taabanayo ama la dilaayo waxaa ma samayn karo si ay sheegaysay muxuu ahaa anigu waxaan qabaa adeer in la fuliyo hablaha wixii tacaddi u geystay tacaddiga kale guud ee dumarka oo dhan dee wada khuseeya ama carruurta khuseeya kuwa yar dadka u nugul matalan oo dhanba waxaan jeclahay in si gaara loogu fiirsado la ilaaliyo xil la iska saaro culimo iyo caame iyo dawlad iyo shacab iyo dad waliba ay ilaaliyaan dadkan cabanaya sidii loo badbaadin lahaa cabashadooda ee loo gaari lahaa waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay intaasi waxaa noogu soo idlaaday dood wadaag lagu falaqaynayay sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga iyo wacyigelinta arrimaha bulshada Soomaaliland sidii kor loogu qaadi lahaa helitaanka cadaaladda iyo adeegyada muhiimka ah dooda waxaa igala qayb galay Farax Axmed Cilmi oo ka socota Nagaad Network sidoo kale Xamde Yuusuf oo ah garyaqaanad ka shaqeysa arrimaha haweenka sidoo kale Sheekh Yuusuf Cabdi Xoore oo kamid ah culimada Soomaaliland doodan waxay idin daadihinaysaa anigoo Hoodo Cismaan Axmed tan iyo intaynu ku kulmi doono doodan mid la mid ah sidaas iyo salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh